markana waxaynu joognaa qaaradeena duqda ah gaar ahaan isla docdan geeska Afrika. waxaynuna ku wadnaa mid kamid ah dalalka ugu quruxda badan geeska ka oo ah Kenya. Jamhuuriyadda Kenya waa dalka 48aad ee ugu ballaaran dunideena, waxaana cabir dhuleedkiisa lagu sheegaa 580,363 kiiloomitir oo laba jibaaran. caasimadda dalku waa Nairobi. tirada dadka dalkaasna waxaa haatan lagu sheegaa 55 milyan oo qof. in badan oo idin kamid ah la idin sheegi maayo halka ay Kenya ku taal. haddaanse ku tilmaamo dalalka ay xadwadaaga la tahay, Suudaanta Koonfureed ayay dhinaca waqooyi galbeed daris kala tahay. Itoobiya ayay jihada galbeed xuduud kala wadaagtaa. dalkeena Soomaaliya ayay docda bari daris kala tahay, halka uu dalweynahani bari iyo galbeedna xadwadaag kala yahay dalalka Uganda iyo Tansaaniya. falowda haddaad bogan ku cusub tahay, muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo, kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Kenya kaga warinayno. haweeneydii ugu horeysay Afrika ee qaadata biladda nabadda adduunka. oo haweeneydii ugu horeysay Afrika ee qaadata biladda nabadda adduunka Nobel Peace Prize waxa ay ahayd Wangari Maathai oo ka soo jeeday dalkan Kenya. Wangari waxa ay sidoo kale ahayd haweeneydii ugu horeysay bariga iyo bartamaha Afrika ee shahaadada doctorate-ka ka qaadata culumta biology-ga, iyo haweeneydii ugu horeysay ee dalkeeda gaarta darajada professor. Maathai waxa ay door muuqda ka ciyaartay dhismihii nidaamka dimuqraadiga ah ee Kenya, waxayna bilowgii ka tirsanayd mucaaradkii madaxweyne Daniel Arap Moi. Wangari waxay 1977 bilowday olole haweenku ay kaalin muuqata kaga qaateen ilaalinta deegaanka, ka oo la oran jiray dhaqdhaqaaqa Green Belt, midka oo lagu beeray in ka badan 30 milyan oo geed. ilaa maanta ayay Kenyaanku u aayayaan dhaxalka dhaqdhaqaaqaas. biladda nabadda waxa ay ku heshay taageerideedii dimuqraadiyadda, horumarka iyo nabadda ee dalkeeda iyo qaaradaba. Kenya waxay haysataa biladaha ugu badan tartamada Olombikada marka laga hadlayo Afrika. Kenya waxay markeedii ugu horeysay ciyaaraha Olombikada adduunka ka qayb gashay sanadkii 1956. wixii goortaasi ka dameeyayna ciyaartooydeedu joogto ayay tartankan uga qayb galeen. orodka, feerka iyo guud ahaan ciyaaraha kale ee tartamada Olombikada ayay sanado badan wacdaro ka dhigeen Kenyaanku, gaar ahaan sanadihii 2008, 2012 iyo 2016 oo ay biladaha ugu badan matalayaashoodu urursadeen. guud ahaan waxa la wariyay inay Kenyaanku haystaan 103 biladood oo kala gedisan, taa oo ka dhigaysa dalka koowaad ee Afrika ugu biladaha badan marka ay tartamada Olombikada joogto. Kenya waa dalka labaad ee ugu buuraha dhaadheer Afrika. sida la wariyay Mount Kenya waa buurta ugu dheer Kenya, taas oo dalkan ka dhigaysa wadanka labaad ee Afrika ugu buuraha dhaadheer, maadaama ay tahay buurta dherer ahaan ku xigta tan Afrika ugu dheer ee Kilimanjaro, Tansaaniya. Mount Kenya ayaa dhererkeeda lagu sheegaa 17,057 feet. Kenya waa dalka soo saara calaanshaha madow ee adduunka. haddaan si kale u dhigo, waa dalka labaad ee soo saara caleenta shaaha adduunkeena oo dhan. kaliya waxa ka horeeya dalka China. waxa ugu badan ee ay dunida u iibgeyso Kenya waxa lagu sheegay caleenta bigeyska ama shaaha madow, waxaana la wariyay in dalkani sanad walba dunida u iibgeeyo 450,000 oo tan oo caleenta shaaha madow ah. shanta aan la ogolayn Kenya in la ugaarsado. Kenya waxa ay leedahay shuruuc lagu ilaaliyo oo mamnuucaysa in la ugaarsado 5 xawayaan oo la oran karo waxayba qayb weyn ka qaateen kasbashada dalxiisayaasha ee dalkaas iyo quruxda deegaanka. waxaana xayawaanadani kala yihiin libaaxa, maroodiga Afrikada khaaska u ah, loogisida, wiisha leh caynanka midab ee kala ah cadaanka iyo madowga, iyo xayawaanka shanaad oo ah shabeelka caynkiisa Afrika u khaaska ah. ogow, Kenya waa mid ka mid ah
dalalka ay ku nool yihiin duurjoogta dunideenna ugu badan. 6 in ka badan 68 af ayaa looga hadlaa Kenya. luuqadaha rasmiga ah ee dalku waa Swahili iyo English, ha yeeshee in ka badan 68 afguri oo kala duwan ayaa la wariyay inay ku kala hadlaan qabiilada wadanku, kuwa oo kala dhihid iyo kala dhigid ah. 7 isirada dadka Kenya. sidaan horay u niri, tirada dadka Kenyaanku waxa ay madaxa la gashay 55 milyan oo qof, waxaana halkaas ku nool 47 qabiil oo ku kala hadla 68 afguri ee aynu sheegnay. 67% Kenyaanku waxa ay ku abtirsadaan Bantu, halka 30% isiradoodu ay yihiin Nilonic people. Nilonigu waa dad asal ahaan ka soo kala jeeda dalalka Koonfurta Suudaan, Ethiopia, Suudaan, Uganda, DR Congo, Rwanda ilaa Tanzania, halka 3% dadka dalkaasi ay yihiin isirada Kushetiga, Arab, Hindi iyo European. 8 jikada cadaabta ama godka shaydaanka ee Kenya. deegaanka Marafa oo ku yaala meel u dhow magaalo xeebeedda Malindi oo iyana 120 kiiloomitir Mombasa ka xigta dhinaca waqooyi bari, ayaa waxa ku yaal godkan la yiraahdo jikada naarta, the Hell's Kitchen. sida Kenyaanku ay sheegaan, bohoshani waxa ay ahaan jirtay deegaan ay deganaayeen dad taajiriin ah, kuwa oo markii ay ku kibreen maalka Eebbe siiyay daad lagu halaagay. daadkaas oo bohoshan aynu aragno ka jeexay halkii ay deganaayeen. qiso qosol leh ayaa ah in Kenyaanku yiraahdaan halkan jin ayaa cunto ku karsada habeenkii, oo waad urin kartaa mase arki kartid cuntada lagu karinayo. arrintaas ayaana loogu bixiyay magaca jikada naarta. ogow, dalxiisayaal badan ayaa qisadan yar darteed u yimaada halkan oo arkideeda lacag ku bixiya.